madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay guddiga qaramada midoobay ee cunaqabateynta hubka Soomaaliya ayaa la wadaagay warbixin ku saabsan deegaanada dowladda ee ka xureysay argagixisada Al-Shabaab, qorshaha dib u habeynta ciidamada xoogga dalka iyo dagaalka lagu dabargoonayo fikirka xagjirnimada. madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u soo jeediyay guddiga qaramada midoobay ee cunaqabateynta hubka Soomaaliya uu hogaaminayo danjiraha dalka Belgiumka in dib u eegid lagu sameeyo nidaamka cunaqabateynta saaran dalkeena iyadoo lagu jaangoonayo taageerida muhiimka u ah ciidamada Soomaaliya si ay u soo afjaraan dagaalka argagixisada laga sifeynayo dalka Soomaaliya. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa dul istaagay dadaalada wax ku oolka ah ee dowladda ay ku mideysay qorshaha wadajirka ah ee dalka laga xureynayo Al-Shabaab, diyaarinta sharciyada lagu wiiqayo ilaha dhaqaale argagixisada iyo dhismaha xafiisyada amniga qaranka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa uga mahad celiyay golaha ammaanka iyo guddiga qaramada midoobay ee cunaqabateynta hubka sidii ay uga go'an tahay taageerida dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhinaca nabadeynta iyo xasiloonida. dhanka kale, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika ayaa maanta kulan ku qaatay magaalada Muqdisho. kulanka ayaa looga hadlay xiriirka iyo iskaashiga labada dowladood, la dagaalanka argagixisada iyo qorshaha deyn cafinta ee Soomaaliya. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed kala shaqeyso dib u kabashada iyo dib u dhiska dalka, wuxuuna dowladda ku ammaanay dadaalada horumarineed ee ka wado dalka Soomaaliya. dowladda Mareykanka ayaa qayb ka ah dowladaha saaxiibka dhow la ah dowladda Soomaaliya ee ka caawiya dib u dhiska hay'adaha dowladda iyo ammaan. dhegeystayaal, halka aad kala socotaan warbixinta waa page-ka aan ku leenahay YouTube-ka oo ah Saadam Group Official. dhegeystay, haddii aadan ka mid ahayn asxaabta ku xiran page-ka aan ku leenahay YouTube-ka, fadlan nagu soo biir oo taabo subscribe kadibna kambaleelka furo si aad u hesho warbixin kasta oo aan soo gelino. mahadsanidin.